Maxaad ka taqaan taariikhda jufada Cumar Makaraan? Maxaad ka taqaan taariikhda jufada Cumar Makaraan ee u dhahay beelweynta Caloofi la hube, gaar ahaan Yabar Caloofi? Cumar Makaraan markaa maqashay maxaa kugu soo dhacayo? Rasas iyo warmo ganid iyo burur ayaa ku soo xusuusanaysaa magacaas. Halyeyada Cumar Makaraan waxaa ka dhashay rag geesiyaal ah taariikhda caalamka galay. Waxaad mashaqaan maadaysigii ahaa. Fidna fooda looma feerto. Faarax Jiilaa ku fidnoobay. Faarax Jiile wuxuu ahaa nin geesi ah oo laga baqa geeliisa. Markii uu ceelka u soo horta dadka waa ka istaagi jireen ilaa uu asaga ka waraabo ceelka. Mahmaahda fidna fooda looma feerto waxay u baxday sannadii 1822 ayuu dilay nin gaal Talyaani ah oo u iljibiyey gabar Soomaaliyeed oo ari jirtay. Wiil uu dhalay Duq Faarax ayaa ku dilay gaalkii gabadha fowdeeyey deegaan lagu magacaabo Boorow oo hoos yimaado degmada Jowhar. Sidaas ayaana lagu xiray qoyskii reer Faarax Jiile oo 8 qof ka koobnaa. Kadib sun ayaa lagu gala buufiyey, dhammaantood xabsi ay ku jireen. Cumar Makaraan waxaa ka dhashay geesigii Daawud Huni oo ku shahiiday dagaal ka dhacay ceelka Kabaharag sannadii 1998 kadib markii ay damceen rag u dhashay Besha Mudulood oo rabay in ay qabsadaan ceelka Kabaharag, Carmoole oo Yaaq Bariweyne iyo Leego. Halkan dagaal adag kadib jab iyo halag ayaa lagu dhigay, waxayna ka carareen xoolahoodii iyo ilmahoodii oo ay u soo adeegsadeen. Markii dambe hogaamiye kooxeedkii fara badan ahaa oo xilligaa haystay degmada Wanleweyn oo ceylay Besha Caloofi inta uu qaaday degmada Wanleweyn tuuray. Daawud Huni wuxuu ahaa geesi taariikhda geli, sababna u ahaa in uu badbaado ceelkii dalxiiska ee Kabaharag iyo Yaaq Bariweyne, wuuna ku shahiiday. Daawud Allaha ka aqbalee dagaalkaas. Laakiin maanta taariikh ayuu ka tegey. Waxaa kaloo ka dhashay Besha Cumar Makaraan halyey Daawud Cadde oo ahaa geesi bir ah oo magac iyo maamuus ku reebay asagana dalka Soomaaliya. Wuxuuna ku soo shacbaxay Daawud dagaalkii adkaay ee ay Al-Shabaab ku qaadeen degmada Leego iyo Yaaq Bariweyne, kaasoo lagu laayay ciidamadii Amisom oo xilligaa deganaa. Waxaana ku dhintay dagaalkaad guddoomiye ku-xigeenkii Leega oo Besha Gare ahaa. Daawud Cadde iyo Cabdulaahi Rase ayaa maalintan dagaalka ka dhigay wacdaro, waxayna soo badbaadiyeen taliye Cabdi Naasir, guddoomiyihii degmad Leego Abuukar Alcadaale iyo wasiirkii duurjoogta ee lagu magacaabi jiray Allaha u naxariistay Cumar Dheere iyo 4 gaari oo cabdi bilayaal ah. Taliye Daawud Cadde iyo Cabdulaahi Rase ayaa xerada Bali Doogle lagu guddoonsiiyey 2 bilad geesinimo, waxaana loo xiray darajo ciidan oo ahayd kabtan. Waxaa xusuusan karo taariikhdaas dadka degan Wanleweyn iyo nawaaxigeeda. Geesi Daawud Cadde iyo Cabdulaahi Rase Allaha u wada naxariistee. Sidoo kale waxaa ka dhashay Cumar Makaraan taliye Cabay Afweyne oo ka yaabsaday Al-Shabaab, wuxuuna qabsaday muddo 3 sano gudahooda ah Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Cabay Afweyne ma aqaan waxa aan ku qiyaaso, Allaha u naxariisto. Cidda waxaa ka dhashay Nuur Rooti abaaduulkii reer Rase, Nabadoon Cismaan Cabdi Dhagacadooy Cilmi Biroole oo ahaa geesigii xoreeyey galjaceelka Dago Kismaayo, nabadoona ka ahaa Jubbooyinka, Bay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose xilligii gumaystaha uu joogay, degmooyiina ka sameeyey Jubbada Hoose. Sidoo kale Besha waxaa ka dhashay Nabadoon Isaaq Dhukow oo ahaa nabadoonka Yabar Caloofi. Shabeellada Dhexe ayaa ka dhashay Besha iyo halyey Cali Jareere. Maxaa isku dhaanaa? Ragga ka soo jeedo ciidaan Cumar Makaraan tiro laguma soo koobi karo. Hawashow Bootin Dheere alla yaa isag Cumar Makaraan la'aantiin Caloofi carada ma joogteen. Gabdhaha ayaa ku suroobi jiray xilliga baashaalka iyo ciidaha iyo farxadda marka barbaarta goobaha iskugu yimaadaan. Anoo Cumar caanihiis nuugay, cabsi gelimey calooshayda. Caan baanahay oo maciishoona Cumar Makaraan ciday waayo. Deegaanada ay degaan asal ahaan Cumar Makaraan waxaa ka mid ah tuulada Rase, Wargubay, Masaaroole, Qaraale, Unkure iyo Showcaa.